ciidamada biliiska Somaliland ayaa dhawaan howlgal ay sameeyeen ku soo qabtay maandooriyaha loo yaqaano xashiishada iyadoo isla maantana ay maxkamadda gobolka Maroodijeex xukun ku riday eedeysanihii maandooriyahaasi mas'uulka ka ahaa sidoo kalena waxay maxkamadda gobolka Maroodijeex gubtay xashiishadii ay ciidamada biliisku soo qabqabteen waxaana xukunka eedeysanahaasi ku dhawaaqay garsooraha maxkamadda gobolka Maroodijeex Cabdiraxmaan Maxamed Mawliid magaca ummadda Somaliland maxkamadda gobolka Maroodijeex xukunka maxkamadda dambiile Maxamed Axmed Ibraahim ina caasha caydiis daadiisu tahay 55 jir maxkamaddu waxa ay ku xukuntay 5 sano oo xariga iyo 5 milyan oo shilinka Somaliland oo ganaaxa maxkamaddu waxa ay u cuskatay xukunkan qodobada 119 iyo 40 iyo 61 iyo qodobka afraad qaradiisa koowaad